annagoo tixraacayna dastuurka qodobkiisa 52 oo ka hadlaya xiriirka wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo laakiin meel ay kaga taalo golo in la sameeyo kuma ay jirto marka waxaan ku talinay in mar walba la isu yimaado annagoo wada tashanayna laakiin aan la samaynin madal maxaa yeelay madal waa la soo arkay hadday wanaagsanayd iyo haddaysan wanaagsanayn labadaba arrintaasi waa nagu yar adkaatay waxaan u gudubnay doorashooyinka waxay qabaan walaalahay waxay qabaan in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo hadda doorashadan waxaa looga hadlay baydhabo oo si fiican looga munaaqashooday kulligeenna aan wada siixnay modelkii electionkaas uu noqon lahaa wixii technicality ahna waxay u taallaa golaha shacabka u taallaa golaha shacabkana iyaguna waxay ku leeyihiin dowlad goboleedyadu dad matalaya wixii loo baahan yahay in la bedelo waxaanu ku nidhi halkaas ha laga saxo annagu haddii aan keennay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ummadda soomaaliyeedna aan awooddoodii aan gacantooda ku soo celinayno wixii hadda ka dambeeya waxaa iska leh sharciyeenteeda golaha shacabka iska leh idinku bacdamaa aad ku leedihiin wakiilo u soo sheega wakiiladiinna sida ay wax idinla tahay la wadaaga arrintaasna xoogaa way nagu yar adkaatay waxaan u gudubnay arrin kale oo ka jirta galmudug arrinta galmudug waxa aanu ku talinnay in dib u heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedyadii kulli waa nugu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nugu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay annagu ujeedadeena waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad og tihiin wax yar kaftanaan ku darsadeen sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay 3 process yuu maraa 3 phases 3 wajuu maraa waji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado oo lugihiisa ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yiraahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado stage-ka labaad ama wajiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiisa cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday u xun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yidhaahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhagaysanay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda choice-ku qofku markuu meel yimaado uu yiraahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo choice-ka isaga iskale inuu qaato daawada inuu diido laakiin haddii lidin yiri galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin waqti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi process la galo election saas looga gudbo runtii wax wanaagsan ma aha waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti uu weeg yahay hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha
saas darteed ma aha wax qof gaar ah loogu dan leeyahay laakiin waa inay noo noqoto xeer hadday tahay dowladda federaalka inaysan waxba ku darsan hal maalina ku darsan hadday tahay dowlad goboleed hal maalin inaysan ku darsan qof alla qofkii markaas doonaya election uu ka qayb galo ha ogaado waqtiga sax ah oo election ka jira uu isku diyaariyo marka ummadana kalsooni dhexdooda laga abuuro waxaan idiin sheegaynaa waan idiin cadaynaynaa annagu mar walba diyaar waxaan u nahay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed ma ka shaqeynayno dan gaar ah oo dalkaani dhibaato badan uu soo geystay muddo dheer uu soo ragaadiyay ummadda Soomaaliyeed dan uma aha haddii madaxdu ay ka shaqeyso dan gaar ah